Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan ka salaamayaa ummadda muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida meel ay joogaanba. Waxaan rabaa inaan yar ka hadlo xaaladan ka taagan Guraceel. Horta Soomaalida musiibo ee Ilaahay u soo diray. Musiibada loo soo dirana waa dad cadow ah oo raba wadanka Soomaalida meel kastaba ha ahaatee gobol ha ahaato mise xamar ha ahaatee inaan hore u soconon cagaha aysan ku istaagin. Labada lugood ay rabaa inay ku dhigaan dagaal ay rabaa inay ka adeejiyaan. Dad walaalaha oo ma aragtay ayay rabaan inay isku baabi'iyaan. Waxay rabaan inaan wadankaas haba yaraatee inaysan waxba ka shaqeyn. Galmudug waxay rabaan inay dowlad kale keenaan oo dhahaan anada galmudug aan haysanaa. Ilaahay waxaan ka baryaynaa musiibadan inuu naga qabto. Ilaahay oo rabbiyo dadkan cadowga naga qabo. Ilaahay dadkan gaalada u shaqeynaya naga qabo. Ilaahay dadkan Ilaahay uu wadankooda tusin oo musiibada ah oo cadowga u shaqeynaya Soomaaliyeed Ilaahay oo naga qabo. Hadday Soomaali yihiin iyo haddii ajnabi yihiin dhammaantood waa silsilad isku xiran wadankayna buuxaan waana dad madax oo caadi u shaqeeya wadanka u soo shaqeeya ama haddaba joogay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa Ilaahay inuu naga qabto musiibadan Ilaahay noo soo diray oo dhallinyaradannadii lagu dhameeyay dhan kastaba. Ilaahay iyo waxaan ka baryaynaa iyo ciidamadanadii difaacayay oo isku haleynaynay oo dhiiganaga iyo dhaqankanaga la soo geliyo la soo tababaray la baabi'iyo dhan kastaba. Ilaahay waxaan ka baryaynaa cadowga Soomaaliyeed Ilaahay naga qabto. war Soomaaliye caqligeena ha shaqeeyo war dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada caqliga dhanba waa laga xaaqay. Haye hadda waa la dhintay dhalinyarada baaba'day kuwa dowladda u dagaalaya waaba la gartay kuwa ahlu sunna xaggooda maxay ku dagaalayeen. Galmudug hadda way dhisantahay way u jeedaan quruxay u shaqeynaysaa nidaam kala dambayna iyo dadkiya ka jira hadda maxay hayaan oo sharafa waa kaasa dad kale u keeneen balaayo kale oo ma aragtay kasoo horjeeday keeneen galmudugtu ay rabaan inay sameeyaan waa tuugo meel allaale meel ay kasoo cisal aqoonin oo Kenyaati iyo Imaaraati u shaqeysa dad caloosha u shaqeystayaal oo Soomaalinimo aan marnaba aan ogolayn. Ilaahay horta kuwaas naga qabto inta horta dhimatay dhammaantood dhan kastaba Ilaahay u naxariisto qabrigoodana Allah u waasiciyo. حق حق دروح كده قالين بإله ونحرس وادد سوماليا وويلش النادي وادد ولا له إن وادد المهنين وادد قرب كنجا والله قرب كنجا يعني جبابة وكسر قلمدوجي أذن كالسكو كينشبينيا أذن كالسكو كين دمينيا أذن كإبرلس كين دقيا أذن كالربا هور إن أنا أسعن أذن كيال ربا اللي سكهر كانوا أذن كيال ربا ويلش قلمدوجي وحلقة كدمانية وعيد مد قلمدوج ودلنيرد قلمدوج ودن كستبوا galmudug laakiin Ilaahay waxaan ka baryaynaa horta dawladda markii galmudug kale la ag sameeyay waxay u baahantay inay isdifaacdo xaq ayana u leedahay inaan noomo galmudug kale anaga ma ogar hal galmudug waa leenahay wixii ka hor yimaado kalena waa in la laayo waana dad aan la shaqeynaynin dadnimada iyo wadanka kala dambeyntiisana ay sarbin ahlu sunno way joogan markii hore baab oo wadankaas hadda galmudug say isla socotana islama socon sidaana galmudug hadda galmudug markay dhisantay balaayo kale un baab lagu soo jeediyay marka horta waxaan leeyahay Ilaahay inta hartana Ilaahay hadda noo xasiliyo Ilaahay dhibka naga qaado Ilaahay inta hartay nabad Ilaahay nagu soo dabaalo waxaan leeyahay marba dawladii galmudug haday dagaal gashay ee Guraceel oo dagaal u ka bilowday run ahaantii waa ceeb in haddana ahlu sunno laga tago ayadoo halkaas joogto waa in eber laga dhigaa who cares maxaa naga galay waaba la bilaabay dagaalkii waaba la bilaabay waana la galay maxaa stiil dadkii dhanaaba dhamaaday waa in laga saaraa aysan meeshaas deganaan no more galmudug kale waxay noo qabanayso male qoorqooran Ilaahay garabkiisa ha galo cadowgii ka hor yimaado dhanna Ilaahay ciid hala geeyo haday shabaab tahay iyo haday ahlu sunno tahay iyo waxaas oo dhan anaga waxaan anfacay iyo waxa u baahanahay iyo wax aan doonayno toona ma ahan Ilaahayna waxaan ka baryaynaa halka khayrku ku jiro Allahna waafajiyo khayrka meesha ku jirana dadku way ogyihiin haday doonayaan waa dawladnimo waa wadan jacayl waa diin jacayl waa kala dambeyn waa dhaqan wanaagsan oo wadankaas dadka galmudug degan oo dhan ay ku wada noolaadaan waa kala dambeyn oo sharciga la ilaaliyo waa ismaqal oo madaxdan loo hogaansamo inta hadii la waayana isku garabya adduunka meel ka shaqeysan cid yeelisana ma lahan cid ku dhahaysa marka galmudug ayada
ha isku garab yaacdo waxay rabaan ha laga qabtana ma jirto dadkaasna anaga ma ogolaanayno ilaahay inta cadowga galmudug kasoo horjeedana allaha jabiyo runtiina waxa waaye dadkan haddaa maantoo dhan barbiyootantid cid kaa qabanaysa male laakiin xooggaaga waa inaad iskaga celisaa mar haddaanay dadku aanay ahayn dad ma aragta raba adiga horumarkaaga ina rabo waxa ku hareeraysa galmudug dad badan ayaan doonayn galmudug inay hore u socoto oo dariskeeda la oo cadow la ah oo indhaha kusoo eegaya oo rabin galmudug inay hore u socoto sababtaas ayaa dhalinyaradeedii laysaga horkeenay ciidamadeedii laysaga horkeenay la isku jabiyey laysku baabi'iyey wadan gurceel meel baaba'san looga dhigay dadka dhan loo qaxiyey dhibaatadaas looga riday caawi caqligii shaqey lahaa aawad bal iyagoon dagaalamin oo xoog wax ku raadin oo qoro soo qaadanin may dadka la hadlaan intaysaba meeshaan soo gelin may dhahan waxaanan u baahanay may dhahan anaga dowladdan qayb ka rabnaa bal wada hadal may galaan markii hore wada hadal xitaa waa looga qusto markii hore xitaa nabad ahayn hadal looga qusto dadkan dad hadal yeelana ma ahan dad hadal yeelaya xitaa ma ahan dadka u malaynaya inay dadkan hadal yeelayaan oo u malaynaya inaan lala hadlin mase hadal aan loo sheegin dadkan hore ayaa hadal loogu daalay waa ay diideen kuraasaa loo ogolaay hadda ka hore la siiyey nagata way diideen jid iyo jaha ayaa laga waayey haddana dhibaatada hadda jirta meeshan waxay tahay intaasoo dhan maxaa loogu sugay intaasoo dhan meeshii maxaa loogu sugay maxaa looga hortagi waaye maalintay soo galeenba maalintii labaad maxaa looga hor imaa waaye maxaa laysaga celi waaye meeshan kumay xididaysteen dhibaatadan oo dhan may dhaci lahayn runtii balaan wanaagsan ay sameeyeen ay dadka ku baabiyaan ciidamada ay ku baabiyaan shacabka ay ku baabiyaan magaalada ay ku barakiciyaan hadday dagaal rabaan banaankaasay degi lahaayeen banaan cad ayay degi lahaayeen ay dhihi lahaayeen guraceel haddii hareyna annagaa iskale laakiin ma aanay sameynin guraceel bartankeediiyay soo degeen markaasay dagaal ka bilaabeen iyo qax iyo barakicin ilaahay kuwaas hanaga qabto ilaahay hanaga qabto waa cadowga lambar 1 Soomaaliyeed waa gaar ahaan galmudug waa ilaahay hanaga qabto dadkana waa inay ogaadaan dadkana inay cadow yihiin aysan rabin galmudug inay hore u socoto galmudug waxay rabaan inay iska horkeenaan bay rabaan marka galmudug caqliga waaba in ka dhamaaday ya intiina damar ha layska kiin horkeeno waa intaas waa inta kaliya la rabay wax kale oo la rabay ma jiraan qoor unbaa saa loogu dhageeyo qoorta allah idinka gooyay kii idin xukumaba saasad ugu dhagantiin mid aad la shaqeynaysana iimaanka allah inka qaaday wadankiina maxaad ugu dhagantihiin hadduu ilmihiina wax barasho helaan oo wadiyaal aad dhisatiin oo ma aragtay business fiican aad heshaan oo dekadiina aad dhisatiin oo noloshiina aad hore u marisiin maxaad uga baahantihiin meel kale waxba ma fakaraysin saas ilmihiinana ilmihiina waaba jaahiliin waxnama baran daas waa adinkana aad shaqadiina u ahayn inay ilmihiina wax bartaan kaliya waxaa rabtiin inaad qofkii idin wanaagsanna aad saas u ceyrsataan marka galmudug wixii naga dhinta way naga dhinteen inta dambe hala daayo xal ilaahay ha keeno cidaasna hal ma doonayaane marba haddayba meesha gacan laysu qaaday magaalada ha laga safeeyo aniga sidaas ayaan dhihi lahaa inta hartana ilaahay noo adkeeyo galmudug allah noo adkeeyo ilaahay cadowgeeda wuu badan yahay galmudug cadowgeeda allah jabiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa cadowga galmudug inuu jabiyo iyo cadowga soomaaliyeed oo dhan meel uu joogaba masiibada soomaaliya dadka cadowga ku ah oo wadamada caada qaadayaalka oo wadamada soo wadaan oo wadamada soo dirayaan bal nin la dhahayo ka waran wadankaagii iyo wadankaagii soo gub walaalkaa soo dil madaxweynahaagii bal dad la dhahayo haye war lacagta imisaad haysanaysaan war waxa aad qaadanaysaan imisaa haysanaysiin waa ayaamo yar wax idinma tarayaan maalin unbaad ka dhimanaysaa cimrigaagu iskama joogayo weligaa waa ka tegay maxaa la tegay ilaahay hortiis war ilaahay hortiis maxaa la tegaysaan ilaahay waxaan ka baryayaa kuwii dhib keenana in aakhire cadaab saa loogu galgaliyo ilaahay u ka jaro rabbiga raxmaanka ah dadka aad kadeedeen xaqooda allah in ka soo celiyo meel aad joogtiinba rabbiga raxmaanka masiimada aad galmudug ku sameeysaan iyo dowladda soomaaliyeed oo dhan aad saa ula daba joogtaan allah in ku gadiyo adinka ilaahay masiibo adinka in ku rido wadankii aan ka degila dowladii aan ka shaqeyla galmudug aan ka shaqeyla wadankii hore u socola sidaas aad ugu dhagantihiin ood iisheeg masiibo ugu noqoteen qof haddaada ma aragtay dadkii adiga kulaha ayse kula shaqeynayn hore uma socotid ee ilaahay wax
wax inka weyn arrin inka weyn ba idin haysatee ilaahay musiibada kaligiin allah idinku ekeeyo ilaahay ku ekeeyo waad salaamaya midna mitaqnin